إنا لله وإنا إليه راجعون magacaygu waxa weeye Axmed Soomaali waxaan ahaa kamera operatorkii ama kameramaankii marxuumada Hodan Naaleeye waxaanan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee misalno kale dad ay wada shaqeeyaan marka muuqaalkan kooban waxaan ugu talagalay oo aan misalno kale ku soo duubay inaan ku sagootiyo ama inaan misalno kale wax aan dareemay inay xaq u leedahay inaan misalno kale aan soo bandhigo ama aan ka sheekeeyo wanaageedii iyo wada shaqeynteeda sidii ahayd iyo bulshada qiimihii wacnaa ee ay u lahayd xalay ayaan ogaaday geerideeda iyadoo 2 saacadood ilaa 3 saacadood kadib ayaan ogaaday sida ay ummadda Soomaalida oo dhan aanay misalno kale uga leedin ama aanay uga seexan ayaanan xalay anigu Axmed Haanan u leedin marka waxay u kaliftay inaan misalno kale aan soo duubo muuqaalkan si aan uga sheekeeyo waxyaabihii wanaagsanaa ama dhaqamaadkii waawanaa ee aan Hodan ku bartay Hodan asal ahaan waxa ay deganayd Canada kadib waxay ku soo noqotay ama ay go'aan gaadhay inay misalno kale dalka ku soo noqoto Soomaaliya waxa ay degtay Kismaayo waxa ay doonaysay sababta ay u soo degtayba waxay ahayd inay misalno kale dee soo bandhigto ama ay iibiso quruxda iyo dabeecadda iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu ay leedahay halkan yaala iyadoo taa ka duuleysa ayaa waxa ay sameysay inay ka hawlgasho deegaano badan oo ay Soomaalidu leedahay ama ay degto oo ay dee wax ka soo tabiso waxa ay Hodan ila soo hadashay aniga oo maalin Burco jooga kadib waxay igu tiri Axmed waxaan doonayaa inaan misalno kale aan laascaanood ka sameeyo documentary ama vlogs ama misalno kale muuqaal ka duubo marka waxaan doonayaa inaad ii timaado maalin Khamiis intii la soo hadashay baan Jimcihii oo yimid dabeetana isla gelinkii dambaba hawshii waanu galnay haddii waxaan jeclaa inaan xuso Hodan family-geeda oo dhan inta ay misalno kale isugu wada yeedhay iyagoo dibadaha kala duwan jooga Europe iyo Mareykanka iyo meel kastaba iyo Canada iyo kala jooga ayay dhammaantood dalka wada keentay oo ay tiri dalka aynu misalno kale horumarkiisa ka shaqeyno taas waxay cadeynaysaa kalgacaylka iyo wanaagga iyo muhibbada ay dalka u haysay waxa markii aan laascaanood isku nimi aanu ka hawlgalnay inaan misalno kale documentary sameeyno misalno kale family-gooda oo iskuul meesha ka sameeyay library first library in laascaanood dhamaantiin cidii daawanaysay muuqaaladii ama vlogskii integration TV saddexda qaybood ahaa dee way dareemi karaan dadka garanaya kalgacaylka ay u lahaysay dalka markii aan misalno kale laascaanood ka shaqeynay aan misalno kale 3 cishan wax baan duubi jirnay 3 cishan waan edit gareyn jirnay ama waan hagaajin jirnay kadib markaan 3 cisho dhameeyno edit gareynta xitaa marmarka qaar waxaan xasuustaa iyadoo oo misalno kale anigoo shaqadii ku jiro dabeetana intaan 8 subaxnimo soo galno dabeetana shaqada aanu ka baxno marka ay tahay 12 habeenimo dabeetana waan daalaa dabeetana waxay dhahdaa iska yaranasan dabeetana waxay dhahdaa may dadkii baa iga sugaya muuqaalo inaan u soo bandhigo marka waxyaabahan dareemi jiray waxa kamid ah waxa ku weynaa bulshadeeda ama dadkeeda oo ay oran jirtay dadkii bay sugaya kama seexanayno dabeetana saan u wadnay waan soo saarnay muuqaaladii waxaan hubaa inaad ma daawateen dhiirigelin bay ahayd oo marmarka aan weydiiyo sababta aad dalkii waxaan misalno kale waxyaabahan Hodan sameeyay waxay tiri dadkan ayaan doonayaa inaan iib geeyo oo aan caalamka geeyo si misalno kale dee loo arko waana shay cajiib oo qof bini aadana inuu ka fakaro ay tahay halkii ugu sareysay ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan ku soo koobo muuqaalkan yar ee kooban ee baroortiiqda lagu soo koobi karo wax qabadeedii ama waxyaabihii ay sameysay ee hal clip laakiin sababtan u sameeyay waxay ahayd inaan dareensanaa ama inaan ahaa dadkii ugu dhadhawaa ee ay Hodan dee soo wada shaqeeyeen dadkana waxa la yiri marka ay ka baxaan ama ay geeriyoodaan wanaagooda ka sheekeeya sababta ay kalifteenata marka 2 fariimood kaliya ayaan doonayaa inaan halkan ka diro mid waxa ay tahay bulshadii ku xidhnayd ama dadkii ku xidhnaa iyada
hodan way naga wada baxday aniga way ga baxday bulshada Soomaaliyeed way ka baxday family-geedii way ka baxday caalamka dhan bay ka baxday waana la tabi doonaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in Masar noo kale jannaadkiisa uu ku asuumo iyada iyo sawjkeeda Jaamac Fariid arinta labaad waxa weeyaan doonayna sheego caruurteedii waxyaabaha ugu dhibta badnaa xalay ka saxanayn waxay ahayd caruurtii ama Masar kale tii xaalkooda sidoo ahaa ama waxa ay dareemi doonaan marka iyagana waxaan doonayaa inaan muuqaal yar ama Masar kale aan fariin yar u diro aan halkan u raaciyo iyagu badankooda af Ingiriisi bay ku hadlaan marka kelmadda aan ku hadlayo waxaan ka dhigi doonaa af Ingiriisi hey guys it's Ahmed again as you heard the news you guys you didn't just lose your mom we all lose someone special someone that's so dear to us and your mama will be so proud of you today if you are alive but unfortunately she's not and I hope you guys are stay strong and we love you we support you and we are with you taariikhdii ay hodan ka tagtay waxa laga helayaa YouTube-keeda oo ah meel aan ay dhammaan Soomaalida caalamka degan oo dhan ay Masar kale ku kulanto ama ay wax ka daawato ah hodan dadku Soomaalida waxay u wada ahaayeen dad u wada siman bay ahaayeen waxay tagtay Boorama waxay tagtay Burco waxay tagtay Hargeysa waxay tagtay Kismaayo Muqdisho Nairobi Canada waa tii joogtay wax kasta soo duubaysay marka isirka Soomaalinimada qof uu qaali ku ahaa ayay ahayd waxaan doonayay inaan ku daro taariikhdii ay ka tagtay ama wixii ay Masar kale soo duubtay ama ay intaas oo dhan ku soo jirtay waxa noo qorshaysnaa aniga iyo hodan inaanu tagno meesha la yiraahdo Ceerikaabo kadibna Kismaayo kadibna Muqdisho waxaan isku dayayaa walow aanay iyadii joogin in aan intaan muuqaaladii duubo aan YouTube-keeda ama Integration TV aan idinku soo bandhigo si ay noqoto wayo waxyaabihii ugu dambeeyay ay doonaysay wuxuu ahaa inay Masar kale muuqaaladaas samayso anigoo shaqada ama u hayay mas'uuliyadda u hayay waxaan isku dayayaa haddii waan ku dadaalayaa waxaan isku dayayaa bal inaan hawsha u dhameeyo ummadda bulshada Soomaalida waxaa jira dad badan oo xumaan fidinaya Masar kale muuqaalo ama waxyaabo badan family-gii ay ka baxday marba soo xasuusinaya iyagana waxaan u waaninayaa ama aan leeyahay ixtiraam privacy-ga ama shayga khusuusiyadda la yiraahdo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.